waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka hadlayaa Dr. Jaamac dawo aan ka qaatay aniga oo jiran oo aan seexan oo jirku dham gubtay oo guri gelin oo raadiga biin waxaan ka qaatay dawadaas waxaan ka helay caafimaad tiro badan labada gacanood waxay ka xirnaayeen garbaha iyo surka waa isku xiraayeen funaanada shaarka lagu hoos mariyo mana gashan karin iska mana bixin karin markay ka soo hadho hoos kaliyaha waxa ka hooseeya way jiranaayeen jirada ay qabeen waxa u badnaa dhibaato tiro badan oo kulayl kula aan ka garanayo dawada markaan waday muddo aan isleeyahay waa 15 casho bil bay ahaydee wax isbedel weyn baa galay dawadii jaamacan ka qaatay 3 item bay ahayd 3 item mid baa isticmaalay labadii kale tan meeshii kama qaado waxaan rajaynayaa haddaan 3daba isticmaali lahaa inaan heli lahaa caafimaad buuxa marka ay soo dhaafto waa raystay guri baan seexday jirkayga baa soo galaaday gacmihii baa furmay gacantii say doontay u soconaysaa funaanadii saan doonaan u gashay dhabarkaan xoqanaya yaa gacanaanka barar bay keeni jireen arintaasaas markay ahayd muddo haddana dawadii waa iga go'day oo waa dhamaystay 2 bilood ka bacdi ama 3 ka bacdi baan dawo kala ka qaatay dawada kale oo aan ka qaatay haatan waxaan taagnahay xanuun dambaba inuu san ugu dhacayn baan aaminsanahay wixii dambeena ilaa toban sababta waxa weeye caafimaadka aan helay oo buuxa oo dhamaystiran ma igu kalifay kelmadda macnaha bulshadu codka gaaraya ay u qaadan inaan jaamac anigu ummadda u qabanay jaamac isma naqaan ma isna qaan ma dawaan kala gadan sax ya maanta dawada ka qaadanayo ka hor ma aragnay ma aragna ma arag mana aqoon laakiin rabbi horti waxaan bulshada u sheegayaa dawada inaan ka helay caafimaad buuxa oo heerka hadda maanta aan joogo gacanahay waa kuwa dhabarkaan xoqonaya waxaana gaaray heer aan faraanta ka shakarin kaadida dhibaatada raacday oo la baxday oo mushkilada oo qaraacanka oo muddo aan shoogsanaay u qabay in ay tahay dhiig iga baxaya waxay ahayd wasakh surweeladii aan xooray 3 sano ka hor oo iga yaraaday haday dib baan u wada yaan u qaatay ay leekaadeen shooga awgi waxa weeye saaka waxaan joogaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaa waa ku maad waxaan marka leeyahay bulshada dawo qaali ah oo mutaanfaca ayaa ninkaas haya anigu kolba taan ka helay weeye qofkii waxa sharaysaana isaga u taala kaliyihii waxaan isleeyahay weliga laga maqba saaka caawa la shan dawadii dambe ka bacdi caawa la shan wallahi ana dareensanayn awal garaac iyo chiefku ay ku noqoto iyo socodka kirkishan cagti saari karin dhibaato badan baa iga haysatay caawa la shan waxaan isleeyahay wax ku haray ma jira waa dhaqamay si toos ah u dhaqmay kaliyihii waxa weeye alxamdulillah rabbi saaka meel la iga haya aniga ma jiro waa ka bax maxaad bulshada waxaan leeyahay dawadaas waa mutaanfac anigu waxaan ka helay waa u sheegay mar labaad waxaan ka helay caafimaad buuxa waxaan hadalkayga ugu soo gabagabeeyay kelmad aan ka baqay dambi inuu noqdo xanuun dambaba igu dhicin maya waxaasina waa caafimaadkan helay awgi ya waayo markaan sheegay gacanahayga inaan furaadka shakarin ya ka iskala bixin karin dii la igeliyo haatana meel walba gacanihi gaaraya ya walxamdulillah rabbil caalamiin hada min fadl rabbi marka dawadaas ilmaada riyaal waa muntaanfac qofki islaamo hays oranin macnaha dawada geedaha tagaalada ka fiican qofki islaamo wax garanayo way soo oran intaasaan kaga baxay saxaatan waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Jaamac wasaguna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh annagu waxaan sidaa u yeelinaa wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith inaanu ka sheekayno faan nagama aha wixii ilaahay nasiiyo oo naga siiyay khayraadka waan idin soo bandhigayna aamina ku soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh